yeeshe waxa la yiraahdaa qofka meeshii uu ka yimid aan garanaynin meel uu socdana ma yaqaan. gudoomiye Jawaari waa dhinac, DB Wall, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo iyana waa dhinac. waxaa maalmaha soo socda dhex mari doona loolan siyaasadeed adag. mooshinka fashilmay in laga soo abaabulay filla Soomaaliya waxaa cadeyn u ah saxiixa 48 xildhibaan oo wasiiro ka ahaa golaha xukuumadda Khayre. kadib xeerkii golaha shacabku dalka uga mamnuuceen shirkadda Dubai Ports Wall ee Imaaraadka laga leeyahay waxaa bilowday hirar siyaasadeed oo ka dhashay go'aankaasi. ra'iisul wasaare Khayre oo hore heshiiska DB Wall u saxiixay iyo madaxweyne Farmaajo oo daha gadaashiisa uga sacbinayay Khayre ayaa gorfeyn kadib isla gartay in diidmada baarlamaanka ee DB Wall iyo Jawaari la isla tuuro isla markaana aan la xumayn Imaaraadka. madaxweyne Farmaajo khudbadii uu dhawaan baarlamaanka ka jeediyay uu qariyay mowqifkiisa ku aadan shirkaddan waxa uu kaliya sheegay inuu digniin u dirayo shirkadaha maalgashiga ka doonaya dalka isagoo aan marnaba soo hadal qaadin shirkaddan ku xadgudubtay madax banaanida dalka Soomaaliya ee DB Wall. Farmaajo iyo Khayre waxay isticmaalayaan laba waji oo qatar ku ah dalka. mid shacabka ay qudbooyin wadaninimo leh kula hadlayaan halka wajiga labaad ay dalka daha gadaashiisa ka maamulayaan iyagoo galaya heshiisyo mustaqbalka halis ku noqon doona Soomaaliya. gudoomiye Jawaari oo ahaa shakhsigii sida geesinimada leh ugu dhiiraday inuu dalka ka raacdeeyo shirkadda DB Wall waxa ku soo wajahan mooshin culus oo Imaaraadku maalgelinayo dadaalna ay ka riixayaan Khayre iyo Farmaajo. Imaaraadka oo ka walwalsan inuu lumiyo danaha uu ka leeyahay Soomaaliya isla markaana doonayo inuu meesha ka saaro go'aankii baarlamaanka ayaa ka soo wareegtay dhinaca madaxtooyada Soomaaliya waxaana qorshihiisa ugu weyn uu yahay in meesha laga tuuro Jawaari lana keeno gudoomiye fuliya oo amiirta Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ka leeyihiin Soomaaliya. hay'adda culimada Soomaaliyeed horay waxay u sheegtay in xildhibaanadii mooshinka keena madaxda dalka ay guryaha ugu dhici doonaan waana inay maanta ka hortagaan mooshinkan u hiilinaya cadawga Soomaaliyeed halka shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka dhiidiyaan qatarta dalka ku soo wajahan. dadka la leeyahay maanta mooshin bay wadaan bal barbar dhiga dadkaasi dareen ma leeyihiin Soomaali ma yihiin waxaa si dhib yar loo leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel meel hebley lacag ka soo qaateen way soo socdaan mooshin bay samaynayaan oo kuwaasoo kale 4 iyo 5 nin iyo 10 nin oo nolol inoo diidan oo amni inoo diidan oo hore inaan u soconno inoo diidan ma intaasaan intaan u tagno yaan dhihi weynayn maya waa inaan dhahnaa maya. baarlamaanka waxaa la yiraahdaa waa wakiiladii shacabka hadda inagu ma raalli baan oga nahay inay lugahayna hayaan weligood. ayaantii dhaweyd baa waxay dhaheen iskoola bulisiya aan ka hadlayay dhiigga nagaad xalaalaysay anigu ayaantaas hallalaayo ma aana dhihin hallayar garaacaan laakiin hadda waxaan leeyahay ha laga soo mantajiyo lacagta laaluushka ay soo qaateen